chapterkeeni ahaa water marka alxamdulillah rabaan waxaynu soo cover garaynay qayb ka mid ah chapterka maanta waxaanu dhammaystiraynaa chapterkii qaybtiisii ugu dambeysay oo ah 2 qaybood waxaanu ka soo warramay sidee biyaha waxaan ka soo warramay intee leeg biyaha dhulka adduunyada intee leeg ah biyaha qaybta biyaha intee leeg ah milix intee leeg biyo wasaqaysan intee leeg se biyaha aynu u baahanahay freshka ah waxaan ka soo warramay qaabka duwan ee loo sameeyo water conservation biyaha loo qabto oo 2 qaybood inuu ka soo qaadanay oo ay afforestation oo kaymintii iyo planting crops waxaan ka soo warramay saameynta xun ay leedahay deforestation xaalufinta dhirta iyo qaabka lagu hortagi karo sidaas imika waxaynu codka soo gabagabeyn doonaa 2 qaybood oo ah siyaabaha kala duwan ee loo isticmaalo biyaha iyo waxa loo yaqaano noocyada sida biyaha looga dhaliyo koronto ama waa maxay hydroelectric power in biyaha koronto laga dhaliyo sida looga dhaliyaa maxaa loo baahan yahay haddii ku horeyno marka general uses of water ama siyaabaha kala duwan ee loo isticmaalo biyaha waxaan water biyo is essential waxay daruuri u yihiin for life nolosha and can be used waxaana loo isticmaali karaa fish farming waxaa loo isticmaali karaa biyaha in lagu beerto kalluun marka kalluunka waxaanu naqaanay inuu badaha ku jiro laakiin kalluunka waa la beeri karaa haraan la sameeyaa ama baraago waaweyn dadana kalluunka waa lagu beeraa taa waa loo isticmaali karaa maadaama kalluunka biyo ka maarmayna 2 domestic use waa maxay waxaanu naqaanaa wax loo yaqaano wild iyo domestic waxa loo yaqaanaa marka inta dadku joogaan waxyaabaha loo isticmaalo biyaha tusaale ahaan inaad cabto inaad cunto ku karsato inaad ku meydhato ka domestic use waxyaabaha aan looga maarmaynin dadku inay cabaan inaad ku meydhato inaad dhar ku dhaqato inaad weel ku meydhato inaad cunto ku karsato kuwaana waxa weeyaan domestic use kuwaana biyaha loo isticmaalayo laguma maarmi karo qodobka saddexaad hydroelectric power oo isaguna ciwaan gaar ah ka warram doona noqon doona hydroelectric power biyaha waxaanu ka dhalinaa tamar khaasan tamar koronto ka dhalinaa qodobka afraad extraction of salt from the sea biyaha waxaanu ka soo saar extraction waxaanu kala soo baxnaa of salt milix baynu kala soo baxnaa from the sea badda marka biyihii baddana waxaa looga faa'iidaystaa in laga soo saarto milixda qaabka lagu saaro tusaale ahaan waxaa loo qodaa badda dhinaca waxa laga qodaa hawe deetana waxaa ku soo caaridaya soo gaadhaya biyihii markay biyihii soo gaadhaan biyihii dib bay noqonayaan markay biyihii dib noqdaan biyihii ku jira godadkaas waxaa ku dhacaysa cadceedda dabeetana biyihii way uma baxayaan marka biyihii uma baxaan godadka waxaa ku haraya milixdii marka waa habka looga soo saarto badda milix marka ay si guud faa'iidooyinka biyaha wadnay waxyaabo loo isticmaalo biyaha si kale waxaa loo isticmaalaa in lagala soo baxo milix qodobkan kale watering animals biyaha waxaa loo isticmaalaa in lagu waraabiyo xoolaha ama cayayaanka laga waraabiyo ama harooyinka laga waraabiyo ama meeshana laga waraabiyo waxaanu isticmaalnaa inaan xoolaheena ka waraabsano qodobka kale industrial use biyaha waxaanu isticmaalnaa warshadaha waxa weeyaan the most chemical panel oo bini'aadamku isticmaalaan ama shayga ka samaysan the most chemical panel oo bini'aadamku isticmaalaan waa biyaha chemical ugu badan biyaha waxay ka samaysan waa chemicals waxay ka samaysan yihiin labada curiga loo yaqaano hydrogen iyo oxygen ka waa chemicals marka waa wax ugu badan ee bini'aadamku isticmaalo biyuhu marka warshada looga maarmi maayo sidoo kale waxaa looga maarmay qodobka ugu dambeeya agricultural use looga maarmayo wuxuu loo yaqaanay beerihii oo beerihii waa laba beeruhu ama ha noqdaan beerihii waraabka roobka ama ha noqdaan beerihii roobka ku baxayay ama ha noqdaan kuwii waraabka labada jeer biyo u baahan yihiin marka agricultural use noo loo isticmaalaya aan ku soo celiyo general use of water waxaan ku sheegnay inta noqdo fish farming in kaloo lagu beerto domestic use waxyaabahan daily use-ka ama routine-ka ee maalin kasta inaad ku meydhato inaad biyo waxaasoo kale loo isticmaalo in laga dhaliyo koronto inaad kala soo baxdo milix inaad ku waraabsato xoolaha inaad u isticmaasho waxaa loo yaqaano warshadaha iyo inaad u isticmaasho beeraha ciwaankeen xiga wuxuu noqonayaa hydroelectric power oo inaad biyihii ka dhaliso koronto sida lagu dhalin karaa horta waa maxay hydroelectric power is the power waa tamarta derived from laga soo saaro the fall of water biyo ka soo dhacaya from higher meel sare to a lower level oo imanaya meel hoose marka siyaabaha la socda biyaha meel lagu xuraya dhaamsi tusaale ahaan meel yar maraan loo sameynaya kameeshi waxa ku maraya pressure xoog ku maraya biyihii
hoosna way gelayaan markaasna waxay wareejinayaan dynamo biyihii waxay markay meel yar oo ciriya maraan biyuhu iyagu xoog badan waxay samaynayaan pressure badan bay samaynayaan inta dynamo meesha la wareejinaya dynamadina waxaa ku xiran hinjin dabdhaliya ah tan hinjinkii badan ka dhaanaya waa halka talaabaya intana saas oo kale ayay iyaguna u samaynayaan electricity marka the development of water power in la sameeyo tamarta biyaha laga samaynayo today maanta requires waxay u baahan tahay extensive construction dhismo weyn bay u baahan tahay halkaas waa construction extensive construction ayay u baahan tahay dhismo weyn la sameeyo oo isla maxay inaad samayso storage lakes inaad harooyin waaweyn samayso dams ama biyo xidheeno may bass canals iyo kanaalo yar biyahaas ay ka baxaan dabeetana and the installation iyo inaad rakibto installation waa rakibid weeye iyo inaad rakibto of large turbines dynamooyin waaweyn and electric generating equipment iyo qalab dhalinaya tamar marka daynamadii marka la wareejiyo daynamadii waxa ku xiran dabdhaliyayaal waaweyn dab baa ka dhalanaya marka saasad marka uu ku samaysmaya waxaan loo yaqaano hydroelectric power marka halkan su'aalaha ku jira wax weeyaan waa maxay hydroelectric power waxa lagu tiriifay waa biyo ka imanaya meel sare oo ku dhacay meel hoose oo dhalanaya wax koronto maxaa loo baahan yahay si loo sameeyo hydroelectric powers waxaa loo baahan dams ama lakes storage of dams ama lakes baa loo baahan iyo turbines iyo hydroelectric dams baa loo baahan inta loo baahan okay chapterkeena inta soo dhamaaday waxaan si yar oo kooban soo khulaasaynaya marka chapterkeenu wuxuu ka hadlayaa oo dhan marka bal dhugu yaro insha Allah ta'ala inta chapterkeenu maadaama water ka hadlayay waxaanu kaga warramaynay siyaabaha kala duwan ee biyaha loo qabto waxaanu ka warramaynay haddii xaalufin dhacdo saameynta ku imanaya biyihii aan u baahnayn waxaanu sidoo kale ka soo warramay Allahumma salli ala Muhammad haddii xaalufin dhacdo insha Allah haddii xaalufin dhacdo in la siyaabaha loo sameyn karo wacyigelin ama looga hortagi karo waxaanu ka warramay sidoo kale siyaabaha kala duwan ee biyaha loo isticmaalo waxaanu ka warramay siyaabaha biyaha lagu dhalin karo koronto marka aan ku horeeyo su-aasha isweydiinaya waxa weeyaan biyaha laga helo adduunka korkiisa marka loo qaybiyo dhulka berri iyo bad ama berri iyo biyo marka loo qaybiyo inteebaa berriya inteebaase biyo ah dhulka waxa berri ah 30% waxa biyo ah 70% waayahay halkaa laga dhig berrigii biyihii soo qaad 70% baa biyaha bani okay haddaba markaynu biyaha 100 ka dhigno inteebaa biyaha ah biyo aan loo baahnayn 97% waa biyo milix leh saddexdaa soo haray 2% waa biyo wasakhaysan midka soo haray ayaa ah fresh water ama biyo aan u baahanahay kaas waxa weeyaan biyihii oxygenona biyuhu waa waxa ugu muhiimsan ee aynu nolol ahaan u baahanahay isaga iyo oxygen kala oxygen isaga ku xiga waayahay haddaba habab kala duwan biyaha loo qaban karo maxaa kamid laba habeen ku dhiganay casharkeena mid wuxuu ahaa afforestation oo ah kaymayn iyo in dhir la beero si biyihii loo qabto iyo crop planting oo ah in dalag laga beero dhulka okay intaynan taa ka warraman waxaanu ka sheekaynay markaa intaynan dhirayntaa samayn haddii la iskaba daayo oo dhulku ahaado waxa loo yaqaano deforestation ama xaaluf ahaado waxaa saameyn u yeelanaya deforestation waxaan ku sheegnay waa removing of trees for an area waa inaan dhirta laga guro meel markaasaan ma yeelanaysa haa biyihii dhulka ku istaagi maayaan dhulkii wuxuu noqonayaa saxare roob di'i maayo waxyaabahaas oo dhan yeelanaya siyaabaha lagu hortago maxaa ka mid ah in wacyigelin bulshada la sameeyo in dhirayn qaran la sameeyo oo qaranka la isugu tago in wakaaladaha dowladdu mamnuucdo in dhirta la jaro waxyaabaha noocaas oo kale okay waa maxay afforestation waa maxay waa deforestation bay ku awsatahay deforestation waxay ahayd removing laakiin afforestation waa planting of trees yani meesha ku beerto ama dhirayn ama kaymayn baa loo yaqaanaa ujeedooyinka laga leeyahay afforestation waa maxay ujeedooyinka laga leeyahay waxa weeyaan inaad samayso bacaad celin sand dune fixation inaad samayso wind breaks inaad dabiiciya noqdaan inay sidoo kale noqdaan town ama village shelter belts inay hayndaab noqdaan tuulooyinka iyo magaalooyinka u noqdaan si aanay dabeelaha daadad ku soo gelin waxyaabaha noocaas oo kale weeyaan
waa maxay waxa loo yaqaano crop planting in dhulka la goglo dhirta caleemaha balbalaaran leh in lagu beero ama caleemaha balbalaaran dhulka la dhigo oo lagu qubo maxay faa'iido leeyahay waxay faa'iido leedahay as a fertilizer ama humus bay noqonayaano dhulka waxa noqonaya carro nafaqeeyaan bacteria qurminaysa caleemaha balbalaarna dhulka ay gelayaan dabeetana dhulku wuxuu ka faa'iidaya humus ama nafaqo ka faa'iidaya sidoo kale waxay noqonayaan biyihii bay haynayaan they retain the water waxay soo kale ilaalinayaan in biyihii evaporation sameeyaan ay ka baxaan tanka biyo waa la ilaaliyay waxa ugu dambeeyay marka aan ka warraynay imika waxa loo isticmaalaa biyaha waxyaabo badan baa loo isticmaalaa in domestic use loo isticmaalo in loo isticmaalo agricultural farming in loo isticmaalo fish farming in loo isticmaalo hydroelectric power in loo isticmaalo agricultural use waxyaabo badan baa loo isticmaalaa culanka ugu dambeeyay wuxuu ahaa hydroelectric power biyaha waa laga dhalin karaa koronto waxa loo baahan yahay marka in biyo badan meel lagu kaydiyo sida dams iyo lakes ama webiyaal hesho dadana aad samayso biyo xidheeno dadana aad canals yar samayso dadana aad meesha dhigto waxa loo yaqaan turbines oo ah dinawooyin waaweyn dadana aad ku xidho dinawooyinka waxa loo yaqaan electric generator powers oo ah dabdhaleeyaan dadana aad biyo ku soo deyso u samayso meel yar ay soo maraan canals dadana aad dhigto dinawadii biyaha wareejinaya biyaha xoog badan la wareejinaya dadana waxa dhalayaan dab intaas uu ku eeyahay chapterkeena insha Allah ta'ala wixii su'aal qabtaan waxa kusoo bixin doontaan comment ku haboon ay weydiin kartaan wixii leeyahay waa in soo dhigana insha Allah ta'ala ku haboon. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.